السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبada Soomaaliyeed ee daafaha dunida naga daawanaya dhammaantiinba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sharaf iyo karaamo gooniya ayay ii tahay in uu halkan caawa nala fadhiyo fadilatu imaam adaaciyu alkabiir sheekh cabdirasaaq xaashi imaamka masjidka abubakar asadiiq ee minneapolis ee dalka maraykanka kaas oo ah mid ka mid ah masaajidada ugu waaweyn ahna masaajidkii ugu horreeyey ee waqooyiga Amerika laga aasaasay isla markaasna masaajid magaca iyo sumcadda Soomaalida iyo kan Islaamkaba kor u qaaday sharaf bay ii tahay fadilatu imaam inaan halkan ku kulmayno sayidii marka hore falyatafadal mashkuuran maajuura ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بان كو سلاميا وانا كسود وينيا وانا كفرح سنهي إن كلمة كعلاقة يبقى الله ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك فضيلة الإمام الأستاذ شيخ عبد الرزاق حاشي حفظه الله ورعاه وقديب يا إمام برها بلشدة يا مساجد كبقول الدروس يا كتبه وها أشيق عنكو أها كان مدها علماء الصوماليات بالله براروجين تقويسك يا إن أكهد له قربها يا قويسك وهنا عنكو نقضي شاكدي حاو يا آدم oo sanooyin 20 sano ka hor ah uu shiiqu isaga oo da'yar nala wadaagay anigoo ka codsanaya inuu mar kale noogu soo celiyo sheekooyinkaas iyo muxaadaraadkaas qaybiga badnaa waxa kale oo shiiqu caan ku yahay muxaadarooyin farxad iyo murugo leh naar iyo janno qaatumo wanaagsan iyo qaatumo xun isagoo mar walba shiiqu baraarujiyay bulshadiisa Soomaaliyeed kana daweeya halka ay bulshadu ka bogto sayidul kariim mar kale ayay sharaf ii tahay inaan halkan ku kulmayno mowduuc kala duwan kala qiimo badan kalena fadli badan marka aad wax maqasho waxbaad dhegta u sii raaricisaa oo aad sii dhegaysataa adiga oo sii macaansanaya rajana ka qaba in aad faa'iidada mowduuca ama ciwaanka laga sheekeynayo dhaxasho وموضوع عاد قيم بدن رب سبحانه وتعالى أنيجا أديجا يشيقبا هنجدجو أهل الجنة تذكرت موضوع إنه ما أنت وحى يا أهل الجنة يا كم إذا دتك الجنة جلية إن شاء الله سيدي الكريم سؤال شيء هو الرسالة جعلها إن كويديا وحوي يا وي دتك أهل الجنة سيدي فليتفضل مشكورا ومأجورا بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها مسلمين كأمانة جوتنبا جعلنا لي الله وإياكم من أهل الجنة إلهي هاي قدقوا أنيقا إذن كان الله إذن كدقوا من أهل الجنة ذاتك أهل الجنة عبدي ما أنت الله دهو وحان qofkii waxa sameeyay nolosha adduunka uu ku liibaanaya waxa xaqiiqa inaan dhamaanteed raadin lahayn sida u heleen liibaantaas waxaad fiirisaan saxaabada nabiga ridwaanullaahi calayhim markay nabiga la joogaan waxa ugu badan oo ay focus ka saari jireen waxay ahayd rasuulka ilaahu jannada maxaa lagu galaa yaa jannada galaya seen jannada ku galaa inaan markay isweydiino oo fadhiyadeena ay ku camiranto arrin muhiim ah way waxaan rabaa marka inaan idin la wadaago saddex xadiis oo xadiiska nabiga ka mid ah sallallahu alayhi wasallam oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu noogu sheegayo dadka ahlu jannada ah saddexda xadiis markaad aragtid waxaad fahmi doontaa yaa ahlu janna xadiiska ugu horeeya waa xadiis imaam muslim uu wariyay wuxuu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam أهل الجنة ثلاثة تذكر أهل الجنة وصدح قف أهل الجنة والنبي يقول صلى الله عليه وسلم رجل ذو سلطان مقسط متصدق موفق من سلطانه وملحه وعدالته oo wax sadaqaysta sadaqa badan oo haddana muwaffaq oo ilaahay uu xaq waafajiyo fiirso nimanka madaxda ah waxaa rabaa xadiidkan oo kale markay maqlaan inay isku dayaan oo u hanqal taagaan inuu ka mid noqdo dadkaas
nin madaxa oo cadaalad ah dulmi ma yaqaan iyo gardaro oo muwafaq oo ilaahay xaqa waafajiyo si kasta ood u tahay qof dadaali haddaa ilaahay ku waafajinin khayrku wuu ku seegaya oo haddana sadaqa badan wuxuu nabigu leeyahy sala allahu alay wasalam midka labaad warajulun nin raxiimun oo naxariis badan waa qof waxaa la yidhahdaa sidiisaba markaad maqashay rajul shareecada islaamka macnaheedu ma aha waa nin ee waxaa laga wadaa qof waaye sida waddankan hadda la yidhahdo oo kale mankind oo kale human being oo kale rajul waxaa loo isticmaali jira qof ilaa in gender gooni ah loola jeedo oo markaa dan gooni ah laga leeyahay ma ahan marka iyo qof qalbi jilicsan oo raqiiqu lqalbi likulli dii qurba wa muslim oo qof kasta oo muslim ah iyo qof kasta oo qaraabo ana u qalbi jilicsan cajiib waay waa qof u qalbi jilicsan qof kasta oo qaraabo ah iyo qof kasta oo muslim ah haddaad aragtid qof qalbi jilicsan oo niyad wanaagsan oo qalbi wanaagsan oo dadku ku soo hirtaan oo wax loo doonto oo la tuhumo oo wax lagu tuhumo in laga helayo waa ahlu janna haddaa aragtid opposite-ka qof laga cararayo oo laga eed sheeganayo oo la leeyahay waa xaasib waa manaxo dantiisa danaan ahayn ma yaqaano waa danayste waa ahlu naar marka ahlu jannada waxa weeye qof qalbi jilicsan oo u naxariis badan qof kastoo qaraaba iyo qof kastoo muslima waxaa isweydiisaa marta inaad ahlu janno noqotid qaraabadaada ma u naxariisataa carruurtaada ma u naxariisataa xaaskaaga ugu dhow ma u naxariisataa odayga ku qababa ugu dhow ma u naxariisataa qofka qaraabadu waa darajooyin waaye levels waaye stages waaye stageka kuugu sokeeya waa xaaskaaga iyo ninka ku qabo haddaad nin tahay xaaskaaga haddaad gabar tahay ninka ku qabo carruurtaada hooyada aabbaha adeerka eedooyinka ma u naxariisataa wallahi dad waxaa jira marka qofka qaraabada ah dan iyo duruuf gasho uu ku dhiiranayo iyo qof aan lagu dhiiranayn marka ma tahay dadka muslimiinta ama u naxariisataa ahlujanna tahay wuxuu nabigu leeyahy sala allahu alay wasalam kana cajiiba waduu ciyaalin mid carruur leh mutacafifun oo dhowrsada cafiifun oo dhowrsoon waa nin dhowrsoon waa qof dhowrsoon oo dhowrsada oo carruur leh haddii si kale loo yidhaahdo waa qof gacantiisu yar tahay oo wax badan aan haysanin laakiin is-ilaaliya oo xaaraanta ka fog oo xalaasha ku dhowrsada oo caruurtiisa xalaal ku korsada maanta waxa carruurteennii innaga oo nool aan u jeedna inay naar u socdaan oo tarbiyadoodii halleeyey oo diintoodii halleeyey qayb weyn waxaa ka ah xaaraanta aan quudinayn bal nabigu fir sal alla alay wasalam waa cafiifun mutacafifun duu ciyaal mid dhowrsoon oo dhowrsada oo saaxibu ciyaal ah sida loo kala inkan badan yahay jannada looma galo laakiin sida loo kala xalaal miirad og yahay waa yaa jannada loo galaa xadiidka labaad nabigu sal alla alay wasalam wuxuu leeyahay wa ahluljannati dadka ahlu jannada ah markuu nabigu sheegay waa mid afraad oon ku darayno waxa weeye wa kullu daciifin mutadacafin aw mutadaacifin mid kasta oo tabar daran oo haddana dadku ay tabar daraystaan oo yasaan waxaa laga fahmaya xadiidka riwaaya lafdiga kalena asagaa isyaso oo tartiib isu dhiga hoos low aqsama cala allahi la abarahu hadduu ilaahay ku dhaartana ilaahay baa baarnimo u samaynaya waxaa jiri jiray dadkii salafka ahaa nin loo malaynaya miskiin laakiin marka laysugu yimaado meelaha jannada lagu galo dadku ay la yaabaan nin istaagaya oo dhahaya rabbiyow wallaahi allow adaan kugu dhaartaye maanta waad isiinaysaa waxaas oo alla uu siinayo low aqsama cala allahi la adarra wuxuu nabigu yidhi minhum bara ibnu maalik baa ka mid ah bara ibnu maalik ma taqaanaan markii yowmu lyamaama yamaamadu waa markii musaylamatulkadaab ay muslimiintu la dagaalamayeen xadiiqatulmowt xere la yidhaahdo wuxuu isugu keenay oo derbiyada suur yihiin aan la geli karin
wuxuu isugu keenay 100,000 oo ciidan ah markii dagaalkii dhacay oo rag carareen waxaa meeshaa galay 90,000 oo ciidan ah saxaabada dhanna waa 10,000 10,000 way Khalid Walid wato oo saxaabadu 1,000 baa saxaabo ahaa inta kale waa taabiciintii markii la geli waayey nin nebinimo sheegtaa meesha ku jira oo nebi maxamed iyo saxaabadiisa la dagaalamaya wuxuu yiri Bara ibn Malik nabiguna marka uu geeriyo sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar waa marka khaliifa wuxuu yiri intaad gaashaan saartaan oo kor ii qaadaan darbiga iga tuura ana idin furayeen albaabka wasay ku dhici kartaa maya sameeya waa la qaaday bismillah waa la tuuray albaabkii uu furay asagoo 80 iyo dhowr nabar jirkiisa ku dhaceen muslimiintu meeshaas ay ku guuleysteen fiiri awoodiisa waa miskiin أقسم على الله لأبره وحال حسوستا سبحان الله ما أنت وحال عكرتا إن آد كول وليس دعاء هذا ما الله أقبلي مسلمة أقبلين هذه إلهي هرتا ما استقانا وعجيب واي والله وحجري جري ضد مركا أي بعدان تهان ربي يو ما أنت أذان كوكو أرتي والسيريسا إلهي بارنمو أصابين يا سيد أرتي ودبع وسينيا محمد بن واصع ninka la dhihi jiray oo taabiciga jaliilka markay muslimiintu ay qabsanayeen baa la yiri meesha la dhihi jiray Kaabul ay qabsanayeen ayay si kasta intay yeeleen bay geli waayeen markaasuu wuxuu yiri markii barqadii ay tahay oo dagaalkii adkaaday محمد قتيبة ibn Muslim oo ciidanka hogaaminayay iyo Maxamed ibn Waasic isoo fiiriya meesha sameeyay wuxuu jiray meesha jiray isoo fiiriya soo waxa loo tagay asagoo laba ragcadood oo duxa intuu tukaday oo uu waran dhulka ku muto dabada saaray yufartu taaya wuxuu leeyahay yaa xayu yaa qayyum yaa xayu yaa qayyum yaa xayu yaa qayyum buu leeyahay waxyaabaha laga sheegay waxaa ka mid ah ilaahayow maanta adaan kugu dhaartay waad noo gargaaraysaa wallahi waad noo gargaaraysaa ilaahay wallahi maanta waad noo gargaaraysaa ninkii marka loo sheego wuxuu yiri kun ciidan ah oo warmahooda iyo seefahooda la baxay فتا محمد واسع وتاقيبا كذكر صنع وأهل الجنة حديث كصبحات وأن الجنة الشيء وحديث عجيب وإنك دنا خسي نبي وحي صلى الله عليه وسلم وحا كرتا إن أهل الجنة أهل النار كأذكر قرتان يبقى يسوك إلى كيف ذلك سيكون عكتا نبي وحي صلى الله عليه وسلم بثناء الحسن وثناء السيء أنتم شهداء الله على أرضه بعضكم على بعض وحتكون كلا قرانيسان أمان توناكسن يا أمان تحن هدا ارتقف لأماني واللي هو خير قبع وقف وناكسن وقف خير قبع وقف دين وقف شخصية ما شاء الله لليه وأهل الجنة هدا ارتقف لليه وظالم وقف إنكار قبع وأهل النار وفي رصدة ولا لها السوشيال ميديا كبوحو قفك أركت دتك أو وذا اللعنضية أو وذا حبارية أو وذا إنكارية أبق هذا تهينا نفاها قطر هذا أركت قفل أمانية أو لوتو عينية أو دتك أي خير كشيغيان وأهل الجنة نبقى صلى الله عليه وسلم أظن مركا وحاد سفيري سا دتك مسلمين تسي كو أركان ضد واحد كتير الآن أو ضد الهالي قلين كرا ويجيري كران مر والبا قف أما لبا أما صدح أما شن كعايا أما وحكاشيك نبي محمد العاجل صلى الله عليه وسلم لكن مركا كومن ضدك الله فيري كومن ضدكم حيكوية كانت هذه خير لغوغو شيغو الله تبارك وتعالى جنده هجينيا هذه الشر يدب لغوغو شيغو الله نارته هجينيا هدان أهل الجنة أضربتان ضدك هاسوية وضدك عدالة كشقية وكو وضدك النحريس تبضا وقلبك جلسا والله وضدك أورصده وحمانتك أورصده وشيلنك أسرق أجيدا وإسكا إندا تريا وحاران إنو يهي وصافينيا ولي أنا كان كمجرو ولي وضدك أيجي الله حيرك كذا الحياة يقانا ماشي الله كجوفته والأكتع إن الجنة جلسي إن النار جلسنا وان مرين كرتا والله أعلم
su-aasha waa ku ما شاء الله dheeraad ما شاء الله سيدي ودوحيني ومعن سنيني جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك أديك يا حاسك أبها يهويدا يا أولاد هذا في جنة الفردوس أكو كل بيو سيدي الكريم وحن مقلنا 10 المبشرين في الجنة maxay uga duwanaayeen ummadii kaleeto ee markaa jirtay maxayse ku mutaysteen sayidii in iyaga oo nool jannada uu ugu bushaareeyo khayru min khalqi illah nabiyuna maxamed nabad iyo naxariisu korkiisa ahaatee sayidii falyatafadal mashkuuran majuura subxaan allah 10 المبشرين بالجنة و10 nin oo hal mar nabigu u yiri waa ahlu janna ma sha allah haddaan tiriyo waa abubakar الصديق عمر بن الخطاب عمر الفاروق عثمان بن عفان علي بن أبي طالب طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص زبير بن عوام أبو عبيدة عامر بن جراح سعيد بن زيد طبعا كاسوي مثل بوحان ربا inaan ka sheega hal kelimad oo caan uu ku ahaa wallahi dawalaalaha waxaad arkaysaa qof buug wata buuggan hebel la yidhaahdo biographigiisi baa laga qorayo waa nin businesska khatar ku ahaayo waa nin leadershipka khatar ku ahaayo waa sax buwaagta in la akhriyo laakiin wallahi nimankanaa mudan in taariikhdooda la akhriyo haddaad akhrisidna oo jeclaatidna niyadaada iyo qalbigaaga iyo diintaada isbeddel baad ku arkaysaa waxyaabaha abubakar wuxuu caan ku ahaa xooggiisa iyo caqligiisa iyo maalkiisaba ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diinta iska lahaa waa budo gooni u tuban waa qof asaga dhan ilaahay leeyahay nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi abubakar qof ka iimaan badan haddii ummadda oo dhan iimaankeeda abubakar loo misaa abubakar baa ka raajix noqonaya tusaalaha idin siinaya in abubakar wuxuu dadka dhan kaga hormaray uu iimaanka ahaa ikhwaani waxaa olfaa iimaankeenu intee buu la egyahay culayskiisa isfiiri bal adigu abubakar maalin baa nebigu khudbeeyey sal allahu alay wasalam markaasuu wuxuu yidhi nin baa wuxuu watay neef lo ah markaasuu gaadiid intuu ka dhigtay buu dhabarka ka fuulay rukuub buu ka dhigtay sida fardaha loo fuulo markaase waxay ku tiri ilaahay ka cabso iga kac la iima abuurin in la ifuulo oo gaadiid layga dhigto ee waxaa la ii abuuray in beeraha laygu fasho oo si kale laygu intifaaco markaas saxaabadu waxay dhaheen subxaana allah baqaratun tatakalam subxaan allah ma lo baa hadlaysa nabigu wuxuu sal allahu alay wasalam anigu waan rumeeyey abubakarra wuu rumeeyey cumarra wuu rumeeyey abubakar iyo cumarra meeshaa ma joogo ka warran subxaan allah inuu nebigu hadii daraja gaaro waa abubakar sadiiq baa layidhi wixii ilaahay soo dejiyo kama u shakiyo haddaad aragtid wax ilaahay soo dejiyo inaadan ka shakinin ahlujannaata cumar faaruuq wuxuu dadka kale oo dhan kaga duwanaa baa layidhi awoodda shakhsiyadeed ee ilaahay uu siiyey iyo inuu dadka muslimiinta maslaxada la jecel yahay walidaalika wuxuu la kuman jiray oo la soo jeedi jiray habeenkii inuu maslaxada ummadda keliya ka fikiro wallahi waxaan ka baqayaa hadday baqal faras dameer neef uu ku simbirraxda ciraaq inuu ilaahay u weydiiyo dhaho cumaroo maxaa jid ugu samayn weyda cusmaan ibni cafaan sadaqada kaska wuxuu dadka dhan kaga duwanaa xishood xishood badan nabiga sal allahu alay wasalam maalin isagoo buudooyinka u qaawan yihiin yaa u soo galay abubakar dan kamuusa gelin cumar baa u soo galay dan kama gelin cusmaan baa soo galay tuu faristuu marada isku daday markaasaa rasuulka maxaa dhacay si miyaana ka xishoonin malaa'igtu ka xishoota hadda xishoodkeennu intee buu la egyahay xishoodkeennu intee buu la egyahay maalin lixaasaan kelimad jeedinayay horta waxaa dhici karta maanta fitnada nagu dhacday waxaa ka mida in aadan gabadha muslimadda ah ama wiilka muslimka ilaahay ka cabsi aadan dhihi karin haddaad dhahda ilaahay ka cabso waxaa lagu leeyahay o haddaad dhahda gabdhaha xishoodeen ha gabdhaha takooraysaa sheekh maxaa gabdhaha faarooda ku geliyey
وهذا ميال لسوانين أو وحليسو شيء أو حشوض الله دين أو النبي صلى الله عليه وسلم أو عثمان عن لغو أمان وحكلا عانكو أها قرآن كجعيل كتاب كمركو ضليابو ما أنت دن قرآن بأخنيا تطبع إهلك ساعها أزيمت سي أوانيان لقوا وانينا يا عثمان قرآن كأخري أما سلادة تكو وحلقوا وانينا يا قرآن كإسكيرة يا إنه كاد عنا فسوحي والله هذا نفتين الظاهر أهان الله كلامك إلهي كما أنا دركتين وكساو حال ألك جلال لي سوء أويو أصور الله بدي اللي بود من مدو هلكا كغتا الله علامته وهي تترتب وحالي جري قبل حاسكي سمرك اللي دلي أصور كتابك أخرينيا ما نمن دربي أنت وصل داتين بيدنا سأليكي بقى مصحفك كدات وحيتي ورما وحادشين ننكي همينك القرآن ككله لين جري ميادشين من كان سادشين وعثمان بن عفان رضي الله عنه علي بن أبي طالب وأنك أفراد وهو عن كوها عدالة قرصور حال الربا أخي الكريم هدات قف مسلمة إن مرول بعدالة صميسو وهو عدالة كسنية مردسي ما كم إذا قوئي أولها بامين يهود وكحوي عثمان علي وحو أركي منكي قوئي سيوت ورقائي سينيو قوئي سي سوي أنالي سوي ميا نجي محكمة قاضي علي الشقين هو أمير المؤمن علي بوتري ما كان سويري من كان قوئي وهيستا يهودي أو حماية أنا قوئي علي بقى لي ما هيستا مرخاتي سويري حسن إي حسين بقى مرخاتي إيه سوي حسن إي حسين وويلش هذه ويلكاغو مرخاتي ما قرسوا النبي نوشيك صلى الله عليه وسلم سوي ورما لبدا ويل النبي ويري وقال يرضى جنة سيد كودي وقال سوي رسولك إله وحنا هي مرخاتي ما قال عنه دينتين وحقا وقال سوي منك يهودي أبن أرنيسا ها ودارت وحي أمير المؤمنين مرخاتي ما هذا كيني نكان ودارت ساقا قوى على اسكتو علي وحي ولا قوى أنا على سوى بحي هذا ما أنت إنه أول يا واوري يا غير هبلهي بلوي وعلى إحريي حاجة كم إحريي محكمة ذي بالتريا وعدالة نك يهود عمرك كتب وحي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول إلهي وحان من خاتي كأهي أنت الدين حق عينيتها وسلام قوي نوس الله أكبر وحال علي وحو عنكو أها من نادر وي إن أركتر علي أن خشوع صنين وأن المينين وحضو ما ليس مركو فإيو وحضر كيسا صوه خشوع صنع إلما كدايس وعلي رضي الله عنه ننك شناب وننك الذي جري طلحة بن عبيد الله وحكى لها دل وحاليجي طلحة العطاء يا الفياض صدقة بدنا يعني سفرين مالنت أحد واحد اسكو فوقصت مالنت أحد نبي صلى الله عليه وسلم ما لقى عربي dadka dhan way caradeen markay caradeen waxa soo haray 9 nin oo ansaar ah iyo Talha ibn Ubaydillah iyo Sa'd ibn Abi Waqqas 9 ansaarteed waa la dilay waxa soo haray kaliya Talha ibn Ubaydillah iyo Sa'd ibn Abi Waqqas iyo nabiga kaliya sallallahu alayhi wasallam gaalada dhan xoogooda waxay isugu keeneen in nabiga dilaan صوت النبي صلى الله عليه وسلم مركي شاكله أتكاتي يقيله وحيري هلم إلي عباد الله الدوامدي إلهي يو رسولك إلهي بأنا إيك عليا مركي قال العدك اللي بسمين إياه كسوك يسوي بأنا ما حد سمعين لها موقف كاسو كذا دات استاجت النجم ما أنت ما استاجنا موقف أن إلهي يدين تيسا أن أهي لنا وحالي النبي وكوه وقت صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي يو leebtii buu isu dhigay jirkiisa waxaa la yiri baasha le aana qubta ma taqaana kashiitada oo kala noqday jirkiisa waxa waran ka taagan leeb buu noqday asagoo oo moodi kashiita jirkiisa aana qub aad moodi jirkiisa bay u yimaadeen saxaabadii markuu saa u soo istaageen inta hore dhan wuu istiilayay buu dhacay markuu dhacay buu nabigu wuxuu yiri war walaalkeen qaada fa innahu qad awjaba jannu waajibta saliman أبو بكر مركي أحد الشيء وحدي جري مالنت أحد ومالن طلحة قات
طلحة بن عبيد الله باقات محو عنكو أها قيرة الدفاع إلهي يا رسول كيس الدين تيس وي طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص حال إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم مركو سعد أركو ودي جري أبتغي واكن أبتغي اتصل بنو زهر بوها النبي صلى الله عليه وسلم أبتغي بوها اتصل تياشين وحوها مستجاب الدعوة الدعاء ليس إلهي وحي رسولك إلهي إبري إنه الدعاء إذا الله أقبله وحو النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك وحاد عنيسد حلال كبك تكن مستجاب الدعوة الدعاء الله أقبله تكن مستجاب الدعوة يا ربي هدول الله أقبله وننك أبوه ريي وإلهي درتي سوما أهل ليب أطور وأنك اللباد أحد النبي كهر صلى الله عليه وسلم وأنك كلية في التاريخ نبي أويري في ذاك أبي وأمي أباهي هو يلي باكو مفرد النبي صلى الله عليه وسلم مركو قائد السيا فرتي أو قائد المسلمين تقعدن مسلمين تو خلافين كدب وحالي تو اسكب حبادية أرجس الرعاني marka ninba ragba waxay ku dhaw dagaalka gashi wuxuu yiri waxaad ii keetaan leeb iyo seef iyo waran ay ku qoran tahay ama kala yaqaan qofka muslimka iyo qofka gaalka ah ii keena markaas dagaal galaya waxaad fiirsaa ikhwaani maanta dadka muslimka waan cayna waan dilaa waan ehdaynaa carabkaaga iyo gacantaada ka ilaasho muslimiinta dartii inaad janno gasho سعد بن أبي وقاص مركو إن بالي سوى بادية جوغا وأنا راعيو إن بالي ويلكسا وحكيري أبو ما إلهي بريد مستجاب الدعوة تهاي ويلكيجيو الله وانكحي شوانا يا مانتا إنا أنه إله إنها يسوعي صوت واحد ذنب عن صنع الله واحد ذنب يعافي الحمد لله أنتو يسوع عافي تنكر النبي صلى الله عليه وسلم بويل صومد يقفك إنها بيلا وكسب جنة قليا جنة قليا محا يقل ساسو كل ده سو أرد بادي جول والنور ولد سعد بن أبي وقاص دينك التضوال وحوي نينك اللي هذا زوير بن عوام وحالتي حواري رسول الله وحل كالنبي قدتك راعي قف كستو حليه هي حواري نبي كست نبي وحي حواري ذي وزوير بن عوام وحا نينك استيدان سبحان الله مركا أرترقا ويهابيسا ويهابيسا نور من الكلام واكد ريه وحان شاقني أفر خلفاء وحان شاقني طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص إيو زبير بن عوام ننك كلا وأبو عبيدة عامر بن جراح أبو عبيدة عامر بن جراح وحالي سبحان الله أبو بكر با وحالي أبو بكر وادينك أدري شام وعندما الشام هو قاميني خالد بن الوليد وكوي ويمكن خالد وكوري أبو بكر كوري وحالي عمر با وحالي صحابة ما نشري سوي نورو بهدي قريان أبو حال وسينا يالو وقهو ما حد إلهي ويدسل لهي نور بو حبو شاقر والله حد في رسالة ما أنت هدي له وقهو قل كان أبو حال وسينا يا محاد ربطا محن يالك صادع إلها محن يالك صادع إلها وحويري عمر وحانيه لها إلهي يقول كان أبو حقسي أو رجع وأبو عبيدة وكلا إلهي يسي الدين هذا وقد على مكتفاعي متى قف دين كربضة كويس وما أنت هديله إلى هذا محل قصية وحان جعلان لها إن الدين إله في الديار إن المساجد عمران أركو إن وحاسمي والدين أن الدنيا كجري مدينة كرتا وأبو عبيدة عامر بن جراح نينك سقالات وعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف ونينك كلية أو أي مسلمين تقبضنايين هدي أبو بكر يا عمر يا أي خلفاء نقول لهين إنه حق ولها أما إنه استاهلي إنه بوس كاسو كلا استاهل عبد الرحمن بن عوف مال كيسة أو نبو إلهي درته بحجري وحكست إلهي درته بحني مالي بوحو بحيه سيال بقول أو رتي أو سبيل iyo saliid iyo dharka buuxo ilaahay dartii u sabaqay asagoo magaalada madiino safarkiisa soo galayo
wuxuu maqlay qaylada safarka dadka dhan soo baxay markaasuu soo baxay markuu ka hortegay safarkiisii yaa magaaladii tujaartii magaalada dhan baa soo baxday waxay dhaheen cabdiraxmaan ibn cawfow dirhamkiiba mid baan kuu saaraynaa wuxuu yidhi ka badan baa laysiiyey labaan kaaga dhigaynaa ka badan baa laysiiyey markaasay dhaheen yaa ku siiyey annagaa tujaartii madiine yaa ku siin kara intaa ka badan wuxuu yidhi waxaa laysiiyey من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة وحال إيجوغا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وحول طبعا جبال إلى تضرب قلبها لإيجوغا يا كو جوغا بينهم إلهي ما إيجاري إلهي ما سيريا سيادة أو إلهي كوليجي عجيب واي والرقا ورق نوال بنيكي كلا كدرين هوا سعيد بن زيد وفاطمة بنت خطاب نينكي قبيوة أسونا مستجاب دعوها ونينك صببت أها إنه عمر صاء إسلامه قري يسا القرآن كاللواء أخيرا وتقييوه طبعا كاس وطبعا كعشرة مبشرين بالجنة وحان كليو إذن كود ريا وأنا الحسوسين يا سي الدنيا كأهايين رقاس عمر بن الخطاب مركو الشام تقي أبو عبيدة عامر بن جراح وننك قبل كدن هيستوي ومسلمين الروم لا دغالميسو دن هوغاميني markuu tagay Umar wuxuu ku yiri waxaan rabaa Abu Ubayda gurigaaga inaan soo booqdo markaasuu wuxuu ku yiri yaa amir weyn gurigayga ha tagin iska daa ma inaan tagaan rabaa ma tagaysid si waa tagaya gurigaaga gurigii buu nakam gurigi markay galeen waa guri cidlo wax alaabo aan oolin markaasuu wuxuu ku yiri أبو عبيدة أو ألاقادي ما هي قرية علادة فيه رسولك يا أمير المؤمنين قرية كلام لا يهي أو طبيعة لكن وحي أن هلب قرية ساقو الدراع رسول حقيبه كيا لا قرية عدي سيسوء طبيعة وعلاقتنا أو درت ما رسولي وقبر جاي قبر جاي قولي حد في رسالة إنك ما أنت قريه إن مركا لصوب وحان كيف كرر alaabta u taalla qiimaheeda iyo daahiyada u yaalla qiimahooda iyo baabuurka aad ku socotay qiimihiisa in la fiiriyo ka waran maanta guri gelgelin ah oo eber ah qofka intuu dhex fadhiya ina dhaha alaabtaydii aakharaan u dirsaday ka waran alaabtayda aakharaan u dirsaday maxay dadku dhahayaan waaliya ma waale asaga caqli sababtoo caawa haddaad dhimato ood god gasho waxaad hormarsatay waxaan ahayn kuma intifaacaysid xaraam bay kaa tahay xaraam bay kaa tahay waxaad jeclaan lahayd wallaahi haddaan caawa dhinto waxaan jeclaysan lahaa allow maxaan hal sujuud ah oo dheeraada u sujuudi waaye allow maxaan hal doolar u sadaqaysan waaye allow maxaan subxaan allah hal mar oo dheeraada u dhihi waaye casharatu bashiri biljanna maxay ka koobnaayeen dadaalka diinta iimaanka awoodiisa xishoodka safiigta dadnimada in diinta lagu qiimeeyo qofka adduun aan lagu qiimaynin cumarka aad u jeedid oo marka furus iyo qaysar iyo kisra marka la sheega baa layihi baqrinta ay ka baqayaan ay mantagi jireen baa layihi markaad madiine ugu timaad waxaad u imaanaysaa isagoo masaajidka dhex jiifa oo qamiiskiisu karkaran yahay waad u imaanaysaa wuxuu waa iimaani adduunye ma aha dharka uu qabo ma aha quruxdiisa ma aha waa qalbiga waxa ku jira ikhwaani jannada waxaa lagu galaa qalbiga waxa ku jira wallahu aclam billahi tawfiiq ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر له ذنبك رب سبحانه وتعالى سيده وحفظ بالانبياء والمرسلين نبي الله ابراهيم هكو حفظه هكو دفاع سيد الكريم جيتك الجنه الله مرنا ربي هكو فوزي جزاك الله خير سيد الكريم asxaabtaas qiimiga badan ee jannada rabbi ugu bishaareeyay nabi maxamed u sheegay ahlu jannada ah meesha macaan dadka oo dhan dadka caqliga leh ay u tartamayaan ma jiraan amal hadii aan samaysano aan tagi karno sayidi falyatafadal mashkuuran maajuura ما شاء الله سبحان الله حقيقة waxyaabaha mararka qaarkood markaad diinta ka fakartid iyo waxyaabaha acmaasha ah mararka qaarkood waad siyaasaysaa adugu waxaan xasuustaa keliya nabiga sala allahu calayhi wasalam
بس سؤال لو ويدي سؤال قفك لو ويدينا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ويدينا وحويدينا ويل أضون ها والنبي حريي والنبي قال وقدو ما النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رسولك الله يوم دلني على عمل التس يدخلني الجنة إكلينية ويباعدني من النار نار تنيفويني سبحان الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم إخوان مين من عمل الجنة نودوي والنار تنيفويني والله ما انت وحي ليه إلهي إبري جنة إلهي إقلي نارت إلهي إنه يقبض بعدي كرباها هيسطة نارتو كيف كريا قفك نبي صلى الله عليه وسلم نوجه جواب والنبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة سجود بني فإنك لا تسجد لله سجدة إله السجود هل سجودا إلا رفعك الله بها درجة إلهي بها درجة كوكريا أضو تري كو درجة لبا درجة 3 درجة 4 درجة 5 درجة نقل درجة ما أنت كريا نقل سجود نقل بوجه وتري سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده نقل وجه أبوك وآتري وحنو صلى الله عليه وسلم وحط بها عنك خطيئة هل دنبنا إلهي وكاغت الترى سجود وحالي ياري نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي وإلهي نبي محمد الله الله وآيات كسي السعودان أدنود إلهي إنه لقر قرتمي نبي محمد وميقال أخرين كرتا ميقال تكن كرتا ميقال تاقنان كرتا ميقال سجود سران كرتا ووحياب لواي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا آية وقد ما يسوردنا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار إلهي وحو آية لها كسور قبل مرة تان عمل جنة لغو فاقرأوا ما تيسر منه قرآن كواحد أودي كأخري ما نول بالقرآن كواحد أودي كأخري قرآن كما أخري ذا ما أخري ذا قرآن حرير كان الله الهوامح وكو وأقيموا الصلاة صلاة دنا حجاج كثرة السجود صلاة دنا حجاج وجهك ملك كل إيديك وآتوا الزكاة الزكاة بحي فرض كعب وأقرضوا الله قرضا حسنا إلهينا وحديمية حرير كأن إلهي لا نهي وديمين أكرا إنا أعرقنا إلهي إنك حرير ما إنك دحي إله وحانا كسينيا أذيك درتاوان أبدحنيا أذيك أكتادان إكتب ووديعة إلهي أكتسب إيقو وصدقات عادية قاسوا إلهي وحويري وأقرضوا الله مركو إذا آيدا واستغفروا الله إلهي ندب الأف ويديس مركو مروا حويا قرآن كاخر إنت الأولي صلاة كدنا زكاة كدنا صدقاء بدي مروا البنا استغفارت كدنا حقيقة وحاء إن جنة جلس بإذن الله تعالى والله أعلم ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله ليك وغفر له ذنبك ربي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك هكوس سارو سيدي الكريم تقوى تغلب فرصة شيش هذا ملعته صاحب الفضيلة أفرت قبل غير كجرا الله كوسي شرط جرتنا ربي حكا حجاب سيدي 10 مبشرين في الجنة رج آيات تحدي مجران دمر حلق النبي الله محمد نبدي نحريسي كركي سهاءها تؤون ولا نبي أشياء إن أهل الجنة سيدي فليتفضل مشكورا مأجورا ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم وحيابها أحاديث اللي قولي وحاكمنا النبي صلى الله عليه وسلم دمرك أهل الجنة دمرك أبو قيمها بلد دمرك أبو قيمها بلد وأفرتان قبلود أو صاصارا وحان ربا قبلود إنا في لسان أفرتان قبلود يبقى الوحي قبلها كالك يرد ونعيه وشيء وحي قبلها كالك يرد ونعيه والنبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد خديجة كوم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة مريم بنت عمران هي آسيا امرأة فرعون أفرتاس بعد دمر كجنة قلية طب وخطرسة
hadda maanta inagu stars baan naqaana heblaaya waa star heblaaya waa khatar waa social media midda haysata snapchatka iyada haysata hebelo iyada haysata magaaladan hadday timaado la yidhaahdo waa loo baandhiyeynaya waxaa imaanaysa kumanaan dumar waa imaanaysa khadiijata binti khuwaylid meeqee qof baa maalintii akhrista taariikhdeeda waxaan isweydiinaynaa maxay khadiija kaga duwanay dumarka kale nabiga sala allahu alay wasalam hal xadiid baan idinla wadaagaya maalin maalmaha ka mid nabiga sala allahu alay wasalam oo waxaa u yimid jibriil rasuul wuxuu yidhi maxamedow khadiija kuu soo socota waxay wadaa weel ama raashin uu ku jiro ama iidaan uu ku jiro markay kuu timaado waxaad gaarsiisaa salaan rabbigeed ka ahaatay iyo aniga nagu salaam ilaahay baa soo salaamo oo yidhi khadiijaha laygu salaamo subxaanaka waxaad ugu bishaaraysaa guri janno ah oo aan lahayn qaylo iyo daal midna waxaa isweydiin leh khadiijo maxay darajadaa ku gaadhay waxay ku gaadhay waa awalu man sajada lilaahi maca rasuulilah sal ly slam waa qofkii ugu horreeyey oo nebiga la sujuudo oo ilaahay caabudo markay dadkii dheheen maalin baa nebiga sala allahu alay wasalam khadiijaa dad wax ka sheegeen dumarka qaar ka mida baa xoogaa dhibsaday nebigu khadiiju marba sheegaya wuxuu leeya khadiijaa tiri khadiijaa markaasuu nebigu wuxuu sal allahu alay wasalam khadiijo daaye dadkii baa i beeniyey markaasay i rumaysay maalkoodii bay ii diideen markaasay i siisay fiiri markaasay way i fogeeyeen way isoo dhoweysay ilmaa ilaahay dumarkii iga siina iyadana ilaah baa ilma iga siiye markii nebigu sal allahu alay wasalam uu qaaro xira uu ku jiray oo ay ku soo degtay aayadihii qur'aanka ahaa ee ugu horreeyay iqra bismi rabbika aladii khalaq ee nebigu uu yimid asagoo naxsan uu yimid waxay khadiija ku tiri maxaad aragtay uu u sheegay waxay ku tiri kallaa wallaahi ilaahay inuusan ku hoojinaynin sababtoo ah qaraabadaad xiriirsaa oo culayskaad qaadaa oo waxa la waayey baad dadka tartaa oo qofka musiibada ku dhacday baad u gargaartaa wallaahi inaan ilaahay ku dayacayn khadiija radiallahu canha midda labaad waa faatima binti rasuulillahi sala allahu alay wasalam faatima gabadhaa yarta ah oo aad u jeedaan markuu nebigu dhimanayey 5 canug camal bay dhashay meeqee sanay jirtay mataqaanaa 4 sano sanadkii ay 25 gelaysay buu nebigu dhintay sal allahu alay wasalam iyadoo 6 bilood kadib ay dhimatay radiallahu canha wa ardaaha saasoo tahay nebigu sal allahu alay wasalam markuu arko intuu istaago buu wuxuu dhihi jiray marxaban ibnati gabadhaydii soo dhowow markaasay maalin bay nebiga u timi sal allahu alay wasalam nebigu dhegtu waxa uu sheegay say way oyday soo haddana dhegtu waxa uu sheegay say way qosashay caaisha waxay tiri ii sheeg muxuu kuu sheegay rasuulku caaisha waxay tiri naa doqon yahay ma intuu xaasaskiisii ka qariyo dhegta wax kuu sheegay baad ooyeysaa ii sheeg wuxuu kuu sheegay say kuma sheegay waa sir markuu nebigu dhintay bay tiri maanta ii sheeg hadduuba dhintay nebigu sal allahu alay wasalam say tiri wuxuu igu yidhi waan dhimanayaa ajashaydii weeye markaasaan ooyey bay tiri suu igu yidhi bay tiri miyaada ku qanacsanayn inaad noqotid sayidyada midda sayidka u ah dumarka jannada oo dhan miyaada ku qanacaynin iyo inaad noqotid qofka ugu horreeya oo ehelkayga ii imaan doona iga soo daba dhimanaya markaasay qosashay war ka warrama qof dhimasho ku farxaya oo qoslaya subxaan allah sababta inay jannada gelaysay og tahay jannada inay gelaysay og tahay innaga maanta maxaa naga farxiya maxaa naga oohiya maanta waxaa dhici karta wallaahi mararka qaarkood waad la yaabaysaa maanta waxaa naga oohiya oo murugo nagu haya kurba nagu haya waa adduunyo iyo masayr iyo maxaan ku dhahaa dhibaato iyo isla hadal iyo buufis waaye laakiin dadka waxaa ka oohin jiray jannada iyo naarka carad aakhiro ku xiraya wuxuu ka fakeraya oo go'aamada uu ku qaato waa aakhiro waa chapter kale waxaa kuu soo hartay gabadha idhaahdo maryam bintu cimraan maryamada arkaysaan hooyadeed
yaa ilaahay ka sheekeeyey aayaddaas markaa aan akhriyo wallaahi waxaad xasuusanaysaa ood la yaabaysaa carruurta iyo waalidka xiriirka ka dhaxeeya iyo sida waalidka noloshiisu carruurta u saamayso ilaahay wuxuu yidhi waid qaalat imra'atu cimraana rabbi inii nadartu laka maa fii batnii muxarara fataqabal minii uur bay yeelatay hooyadeed waay markay uur yeelatay waxay tiri rabbiyow wax caloosheeda ku jira adiga kuu dadray ilaahayow waxaan ballan kaaga qaaday canuga inuu adiga ku khidmeeyo yaa weeye qofka inaga naga mid ah oo cunugiisa markuu dhalayo inagu waan baadhiyaynaa waan farxnaa waan qosallaa waan orodnaa inuu qofku dhaho ilaahayow adigaan kuu nadray canugan waa addoon adugu aad iska leedahay markaase waxay tiri wa inii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashaytaani arajiim ayada iyo canugeedaba ay dhali doonto waxay dhashaba ilaahay baa shaydaanka ka nabadgeliyey ilaahay wuxuu mataqaanaa markuu ka sheekeynayay duriyatan bacduhaa min bacdin waa dad isdhalay wey subxaan allah duriyatan bacduhaa min bacdin waa qaarba qaarka kalu ka ahaaday ilmuhu waalidkiisuu ka farcamay maxay maryama saa u noqotay hooyad baa saas ahayd soo soomaali ma dhihin horay islaantii badarka tuntaa gabadheeduna way haadisaa islaantii qur'aanka akhridaa gabadheeduna way tafsiirtaa islaantii sujuudda ku oydaa gabadheeduna rukuucday dheeraysaa islaantii baariyad u noqota ehelkeeda iyo ninkeeda iyo gurigeeda gabadheeduna iyadii baariyad u noqotaa duriyatan bacduhaa min bacdin wuxuu ilaahay qadaray iyadoo iska fadhido oo tasbiixsanaysa adduunyadaanna wareerisay iyo inkamkaana wareeriyey in raashinka loo keena meel kale soo la gelinay gab la soo hordhigo oo ninkii yaa maryam anaa laki haada huwa min cindi illaah in allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab waxaa kuu soo hartay gabadha la yidhaahdo asiya waa gabadha qur'aanku tusaalaha u soo qaatay intay ducaysatay waxay tiri rabbi binilii cindaka baytan fi ljanna ilaahow guri jannada iga dhis innaga maanta maraykan baan joognaa waxaa dhici karta inaad xasuusatid hooyooyin projectiga iyo hawsinada ay degan yihiin oo ciyaalkooda ku gaaloobayaan ay kala muhiimsantahay ciyaalkooda tarbiyadooda war ciyaalkaaga maad la carartid war waa kaa gaaloobayaan war waad u jeedaa markaase waxay ku leedahay hawsinka shishe eydka ma sii dayn karo hawsinka kama bixi karo haabay taagan tahay maraykanka gabdhe dumarkeenna aniga iga raalli ahaada hadha waxaad dhihi doontaan haa wadaadku dumarku ku taagsaday ragguna waa la mid ragguna waa la mid waxaan u haysanaa maraykan inuu janno yahay adduunkeenni aakhiradeenaba halkan inay taallo ma ah waxay leedahay iyadoo boqortooyo ku nool waxay haysato ogow madaxweynaha maraykanku ma haysto fircoon baa qaba gurigiisay joogtaa wax kastay haysataa iyo waxay leedahay ilaahayow guri jannada iga dhis anigu aakharaan doortay adduunyo waa ka tegey aakharaan doortay adduunyo waa ka tegey gabadhaas marka ilaahay muxuu ku abaalmariyey inay noqoto 40 qof oo ugu sarraysa jannada marka la galo dumarka inay ka mid noqoto waa la geli doonaa jannada marka jannada la galo qof walba waxyaabaha wallaahi markaan akhriyo aad u taabta qalbigayga waxaa ka mid a waxaa dhici doonta maalin dadka dhan intay isa soo garab istaagaan qof kasta iyo carruurtiisii oo taagan iyo ehelkiisii inta jidka siraa la dul dhigo dadku ay ku daawan doonaan markii carruurtaadu ka waran ay dareemaan aabbahay iyo hooyaday oo i koriyey oo i tarbiyeeyey oo i dhalay baa maanta jidka saraa tilaabaya waxaan rajaynayaa inay garbaha igu qaataan oo ay xambaaraan oo ii shafeeca qaadaan oo isa soo garab istaagti ay garabkaaga soo tuurtaan waxaana aada u qaban karin ka war waxaana aada u qaban karin dadka dhan ku daawana abubakar baa imaan ehelkiisii wata nabi maxamed baa imaan faadimaa imaan oo wiilasheedii wadata adigana waa soo istaagaysaa meeshaas maxaad u malaynaysaa ma ku fashilmaynaa mase waa maraynaa
ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu fashilin oo jannada ku u gudba ilaahay uu nagu daro wallahu aclam. ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك. صاحب الفضيله لaba su'aal ugu dambaysan ku weydiinaa intaada noo ducayn. mid waxay tahay xagee maraya masjidka abubakar as-sidiiq dhismihiisii qaybtii saddexaad. midda labaadna waxay tahay ma aniga ka duqnoobay oo ka maaragtay daciifay aw casharadii siirada ahaa ee aad noo aqri jirtay ma joogsadeen mise anigaa la imaray sayidii falyatafadal mashkuuran ma joogaan. bismillah masaajidka dhismihiisu meel fiican buu marayaa insha allah. waxaana rajaynayaa qaybta ugu muhiimsan inay bisha juulaay dhammaystirmi doonto, qaybta kalena ay bil ama 2 bilood ama 3 bilood insha allah ay ka dambayn doonto muddo yar inuu soo wada dhammaystirmi doono. hadda mucdamkiisa waa dhammaystirmay maasha allah. darsiga siirada waa aad baa la ii weydiiyaa, laakiin waxaan ka baxay. masaajidka wuxuu sameeyey system siirada lagu online-ka lagu soo geliyo. marka wuu socdaa darsigii maalinta jumcadu socdaa bacda maqrib masaajidka abubakar unbaa la soo geliyaa wuuna socdaa. weliba meeshii hadda ugu macaaneyd oo khulafada buu marayaa. abubakar baan soo akrinay oo dadku ay aad u jeclaysteen siiradiisii. haddana cumar baa socda oo xalqadii labaad baan hadda maraynaa jumcada soo socota insha allah. bagga facebookga masaajidku ka socdaa mise masaajidka dhexdiisa xerta bis ayaa dhageysan karaa? maya masaajidka dhexdiisu ka socdaa kadibna facebookga masaajidka live la soo geliyaa insha allah. marka waan idinla sheer garayn doonaa insha allah. waana isku dayaya inaan facebookga soo sheer gareeyo markuu socdo. cishihii baa noo dhow. بارك الله فيك بارك الله كلنا فيك. أهل الجنة بإذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله إن باذن شاء الله الله ذلك. إننا أهل الجنة نهي أدبان إذين سلامية وحنا لا يهي إلهي والجنة نو جمعي وح إلهي لو استو وإلهي جنة كوين مجري إلهي وحن كوي دي سنين وجيسا كرامة له يوجيسا نور كيسو سلوك يعرك وواسع نقضي. إلهي وحن كبرنا إنه الجنة نو قليو فضل جيسا إن حريستيسا. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت نوجد عيسى كبدن بالله كسيه فضيله الشيخ الامام الداعي الكبير الشيخ عبد الرزاق حاشي حفظه الله ورعاه امامك يقديبك مسجدك ابو بكر الصديق من نيابوليس oo nooga warramay mowduuc ku saabsan yaa ahlu janna ah iyo sifaadka ay leeyihiin dadka ahlu jannada ah. rabbi subxaanahu wa tacaala jannatul firdaws sheekha iyo ehelkiisa ha geeyo. wa axmed dawaqac iyo sheekh cabdirasaaq oo idin leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. السلام.